erayadan yar ee kooban waxa uu abwaanku u hibeeyey qof kasta oo kalfurnaanta iyo wanaaggu astaan u yahay. waxa uuna ku kasbaday gacalnimada daacaddiisa iyo inuu qof gobeed yahay. waxa uu yidhi, adduunyada qof xeerka iyo runta laga xigsado oo niyaddiisu xalantoo sama lagu xasuustow. wakhti kuma xumeeyo kuma xoorto noloshuye, xamdi iyo allow libin xeranagi ku waarta. xaq waxaad u leediyo xushmo kaad ka mudan tahay, kugu soor xurmiya sharaf. daacadnimo xaddaaftiyo dadku laabta xunshada ma xarraamin weeye, kal xaruuriyoo sugan qofka xaakimsiiyow. allow xanafta dhiilada nacab kula xifaaltama iyo xaasidka ahay. ileen xoor guraayo iyo xumbo weeye duniduye, hadduu xagalka daacdhaco waayuhu xas kula galo ama saban xumaad dooco. xamil oo hagamashiin hana dhimin xawaaraha, rajadii iyo xilliga dihiin yaanay quustu kaa xidhin. xiska samirka deeqsii ku xasili qalbiga nolol iyo xayska kuu maqan.